masaaisha soomka xanuunkan xiriirka la waxa kamida qofkii isagoo sooman ma la talaali karaa liqaax anigu talaalka sidiisa uga hadli maayo oo anigu aqoon uma lihi waa sax iyo khalad mid nooran maayo iyo fiican iyo xiyitoona kan gaarka ah xanuunka la iskaga talaalayo cidii aqoon u labu waajib ka saaran yahay inuu umada u sheegan wuxuu yahay laakiin waxaan ka hadlayaa anigu qofkii ha u xumaada ma u wanaagsanaadee isagoo sooman hadii la talaalo xukun soomi baan anu ka hadlayaa soomkiisa xukunkiisa muxuu noqonayaa sidoo irbadaha dadka lagu mudo xididka laga siiyo dhiigga raacaan ama muruqyada laga siiyo waa laba nooc bay yiraahdaan culimadu nooca koobaad waa ibar muqaddiya waa irbad qofka quudinayso halkii cuntada u gelaysa de uu ku noolaan karo sida glucose to kale falebooyinkan dadka lagu xidhay inay qofka tamar u yeelan loogu xidho taasi soomkii way jebinaysaa lianna fi macna al-akl wash-shurb wixii la cunay wixii la cabiyay la macnata la xukumna way noqonaysaa nooca labaad waa al-ibaru al-ilaajiya waa dawooyinka daaweyn loogu talagalay irbadaha daaweyn loogu talagalay qofkii inay halkii cuntada u galaan iyo cabitaanka aan loogu talagelin sida irbada macaanka loo qaato kale iyo talaaladaas oo kale qof meel cunto iyo meel cabitaan u buuxin maayaan kuwaas soomka waxba yeeli maayaan waayo cunis maaha cabisna maaha cunis iyo cabisna la macna maaha oo wixii cunis iyo cabis ay taraysay tari maayaan qofkii isagoo sooman haddii la talaalo soomkiisa waxba noqon maayo laakiin maadaama dadka qaarkood soomku ku keeno waxaan u jeedaa talaalku dawakhaad iyo tamar darriyo waxyaaba noocaas oo sidii xijaamada oo kale toobniinka oo kale inuu dib u dhigtaa waa fiican marka waa furo ka dhigto